madax xukuumadda Galmudug mas'uuliyiin ka socda labada gole ee dowladda baarlamaanka iyo waliba golaha wasiirada agaasimayaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay xafiiska cusub ee wasaaradda arrimaha dastuurka Galmudug ay ku yeelanayso magaalada Dhuusamareeb. wasiirka wasaaradda dastuurka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa ka warbixiyay waxa xilligan ku soo beegay furitaanka xafiiska ay wasaaraddu ku yeelanayso magaalada Dhuusamareeb oo caasimad u ah maamulka Galmudug. wasaaradda dastuurku kaliya waxay u xil saaran tahay dastuurka oo ah waxa dhamaantiin idin ilaalinaya hadaa tihiin heer maamul heer bulsho iyo heer maaragti kalaba. waxaan u malaynaa inay mararka qaar adag tahay markii maaragti shaqada meeshaas ku lagu xadgudbo qofkii ku xadgudbana lagu qaado oo la soo eedeeyo leeyahay alla qofkaas shaqadii loo idmado baan shaqo kale uga inay adag tahay dhinac kale inay ka farxad badan tahay qofkii xuquuqdiisa loogu soo dhaceeyo oo leeyahay alla nin hebel ka qaatay shaqadaadii. hanti dhowraha Galmudug iyo waliba xildhibaan Salaad Caynti oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa sheegay in dastuurku uu saliyo xidid u yahay nidaamka dhisan ee Galmudug. geedku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. qayb waa xididka, qaybuna waa jiridda, qaybuna waa laamaha. dastuurku waa xididkii sababay inaan isu nimaano intaan meesha fadhisa iyo in kale oo maqan oo aan matalaynaba. wasaaradda dastuurka horta dastuurka markaan asaga yar ka taabto dastuurku waa waxa dadku ummadda isu timid ay ku heshiisay sida horeba loo sheegay iyagayna ka rabtaa inay ilaaliyaan. wasiirka arrimaha gudaha maamulka Galmudug ayaa ka codsaday madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay aqriyaan iyo beesha caalamka dastuurka Galmudug laga yimid waxa ku jiray in xukuumadaha la isku daro, in dastuurka la isku daro, in ciidanka la isku daro, in uu dhaco total merge wax la yiraahdo isdhexgal sunna wa jamaaca iyo Galmudug ah. arrimahaasi markii ay dhaceen waxa kamid ahaa dastuurkii ahlu sunna wa jamaaca ee dastuurkii Galmudug in la isku daray uu soo baxay dastuur cusub. dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdeedana waxaad moodaa in aysan xeerinaynin dastuurka iyagaas. waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo xukuumadeeda iyo madaxdeeduba ay akhriyaan. qofkii aan heli karin wuxuu ku jira Google-ka dastuurka cusub ee Galmudug baa la yiraahdaa. ugu dambeyn madax xukuumadda maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ugu tahniyadeeyay furitaanka xafiiska wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. waxaan ku faraxsanahay in halkan ka xarig jirnay xafiiskii wasaaradda dastuurka Galmudug oo runtii wasiirku uu ka soo shaqaynayay inay maanta heerkan soo gaarto oo xafiiskan ay degto ay ku martiqaado wasaaradaha iyo xildhibaanada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan. dadaal dheeraadana uu ka muujiyay arrintaas miraheediina maanta aan u jeedno. ilaahay baa na waafajiyo uga mahadnaqaynaa. waana inaan maanta xafladan kala soo qayb galna aadan ugu faraxsanahay. Nafisa Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhuusamareeb.